waxaynu barnaamijkeennan ku qaadaa dhigi doonaa 3 qodob oo aad u muhiim ah. kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo wiilka uu dhalay Trump iyo faa'iidada ay Somaliland ka heli doonto Israa'iil oo aad u loobigareynaysa sida quruxda badan ama inay la kulansiisay jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha Cabdiraxmaan Ciro madax fara badan oo caalami ah iyo shirkan maanta dhacayay oo la yiraahdo World Economic Forum oo sanad kasta ka dhaca magaalada Davos iyo kulanada caalamiga ah ee noocan oo kale in Somaliland mar walba ka qayb gasho Somaliland loo asixiyay sidoo kale waxa jira barnaamij aad loogu wareeray oo ilaa xalay toole dacaayad laga dhigayay diyaaradii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo raacay ama diyaaradii yareed private ka ahayd oo maxay sababta halkee ka timid inaynu sidaa iskula faahno iyo sida quruxda badan leh VIP da ama sida madaxweynayaasha caalamka loo qaabilay halka ra'iisul wasaare ku-xigeenkii Soomaaliya halka tagay aan lahayn jaan iyo cidhib meel u dhigay oo gabi ahaanba uu ka soo muuqday isaga oo ka hadlaya meel yaro NGO iyo waxyaabo yar hadda waxaynu geli doonaa madaxweynaha Somaliland marka uu ka soo noqdo halkee buu ku dambaynayaa ma Israa'iil buu soo marayaa maxaa kale oo uu qabsoon Trump waa maxay fariinta la gaarsiiyay iyo barnaamijkan inuu mar walba Trump uu cay iyo afladaagdiyo dagaal u mariyo Soomaaliya iyo waxa laga yaabaa inuu Ilhaan Cumar lafteeda gacanta lagu dhigo oo la soo tuuro hadda barnaamijkaas inuu si fiican uga qaada dhigi doonaa intaynaan hadda barnaamijka kala geli waxa jira ilaa xalay toole waxa aad la isku dhaxmariyay diyaarad dansiday maxay tahay madaxweynaha Somaliland horta diyaaradan yari waa diyaarad yar private oo diyaarad yar ma aha diyaarad weyn ama diyaarad intay ka kacday Hargeysa ilaa halka socotay laakiin waxay ka dhiganayeen dhiig joojin ama waxa la yiraahdo madax xanuunka iskaga biinayeen dacaayadii ama dagaalkii afka haayo ku qaaday Trump si ay dadka indhaha u tusaanayaan diyaaradan iyo waxyaabo la qaad horta shirkan sidiisa waxa la yiraahdaa World Economic Forum waxaanu ka dhacaa magaalada Davos sanad kasta ee Switzerland waxa isku yimaada ilaa 3,000 oo qof 130 wadan ku dhow ay isugu timaada ganacsatada adduunka ugu waaweyn iyo corporationska adduunka ugu waaweyn iyo maalgashadayaal iyo dad dhaqaalayahan iyo waxa soo dhan marka dad gaar ah loo ogol yahay wadamada la caawiyo ee dhaqaalahooda uu ku tiirsay dad kale inta badan magaalada Soomaaliya oo kale haddaba maxay tahay diyaaradani horta magaalada Davos waa magaalo buuraley cimiladeeduna aad u xunto barafa sida awgeed inta badan diyaaraduhu kama soo degaan caadiyan inta badan waxay ka soo degaan 3 garoon bay ka soo degaan diyaaradaha waaweyn international Switzerland magaalada garoon la yiraahdo Swiss International Airport iyo garoonka la yiraahdo Geneva International Airport magaalada Geneva ku yaala iyo Basel International Airport saddexda garoon bay inta badan ka soo degaan haddaba markay ka soo degaan maadaama jam tahay 3,000 qof la qaabilayo waxyaabo badan qaabilay waqtigu aad u yar yahay wax la adeegsada magaalada Davos si loo tago laba jidka dhulka hadii aad marto war buuraley waa baraf xilligan oo kale lagu jiraan waxa la jiilaala inta badan ilaa 3 saacadood bay qaadataa si markaasi ammaanka iyo waxyaabaha madaxda loo sugo waxa loo sameeyaa helicopter gaar ah helicopter-tani haddaba ma aha mid dawladeed iyo mid kale oo gaar loo leeyahay mid ah waxa weeyaan Swiss private charter baa la yiraahdaa waa sida ka muuqata calaamadaasi ka muuqata waa HP waxay ka diiwaan gashan tahay wadanka Switzerland dadka VIP da madaxda oo kala laga soo qaada garoomada si loo keeno garoonka Davos ama magaaladaasi hadda madaxweynaha Somaliland markii ugu horeysay wuxuu la casheeyay madaxweynaha wadanka Israa'iil iyo wiilka uu dhalay Trump ee la yiraahdo maxay tahay Eric Trump iyo Isaac madaxweynahan dawladda Israa'iil waxa kale halka la casheeyay madax fara badan dad iyo fara badan oo qaaliyo oo ma aragtay xalay toole marka dacaayad ma laga dhiganay diyaarad yareed maanta madaxa jabay markii lagu arkay Trump inankiisi haddaba labada shay cajiibkii waxa weey inuu Trump shirkan u mariyay
Soomaaliya meelaan dawlad ka jirin ummadda dhacday 19 bilyan oo dollar ay dhaceen xataa ilhaan Cumar oo 30 milyan oo dollar ku maqan tahay dhanka kale ay tahay meelaan dawlad ka jirin boolis ka jirin dad aad u xun dadka adduunka ugu leeyahay burcadbadeed buu ku tilmaamay laashashkay haystaan sida argixisadiyo kuwa drugs dealerskan u duqaynay oo digada ka dhigay dhankan kalena isagoo hadalka u mariyay ayaa madaxweynihii Soomaaliya wuxuu isku diyaarinayaa cajiibka in uu tago wadanka Mareykanka si uu markaasi uu gudoomiyo shirka labaad ee qaramada midoobay iyo Security Council ka arrimaha Israa'iil kale tii hore baa aan waxba ka soo bixintan hadda marka lagu leeyahay Eric Trump inanka uu dhalay waa nin aad u awood badan waa nin ay ka go'do tirooyin fara badan waa dadka ugu badan ee aabihii waa ninka adigu ka waran adigoo madaxweynaha inankaagii oo ganacsada ah oo bilyaneer ah oo shirkan ka soo qayb gala qiimuhu leeyahay garan kartaa waa dadka wax u sheegay wax fahansiiya aad buu ugu faraxsanaa madaxweynaha Soomaaliland inuu la kulmo hadda madaxweynaha Soomaaliland wuxuu ka jeediyay khudbadda uu madaxweynaha Soomaaliland jeediyay waxay ahayd mid aad iyo aad u habboon horta muu bariyo tegin lagama maqal marna waxaan u baahanaa in la nacaawiyo muu oranin يعني عبد الرحمن أدو في عينك Soomaaliland uu ku matala sababta oo ah Soomaaliya maxaa looga bartay waxaan doonaa in la nacaawiyo in maaragtay bulcadbadeed la naga caawiyo in aad argixisada la naga caawiyo in dhaqaalaha la naga caawiyo in kan soo muxuu yiri aad waxaan doonaa aqoonsi waxaan doonaa maalgelin dalkaygu wuxuu leeyahay waxyaabo loo maalgeliyo sida beeraha macdanta dekedaha iyo waxyaabo fara badan baan haynaa sida awgeed waxaan rabnaa company iyo corporation iyo dawlado investment ku sameeya oo halkan waa qodob aad u muhiim ah dhanka kale wuxuu ka sheekeeyay cidana qod Soomaaliland waa ay Soomaaliland wuxuu ka soo sheekeeyay taariikhdeedii ilaa iyo intay ahayd ma aragtay maxmiyada inay qaadatay markii door bahasha qaadatay ay doonayeen wax la yiraahdo Great Soomaaliya yani Soomaali weyn Djibouti buu sheegay inay ka mid ahayd Soomaali galbeed Ethiopia 60kii si la isugu biiray dagaalkii dhacay in 200,000 oo qof ku dhalaga jaray in waxyaabo caalamka ka daasana haddaba arrinta cajiibkii waxa weeye Soomaaliland cidna ma yaqoon waxay ahayd dalyar oo isaga uu halka ku jira arrimihii dibaddana awoodoodii ay haysteen aqoonsiga inay reer Soomaaliya ay ku garaacaan Soomaaliland oo meel walba ka xidhan taas waxay keentay maanta inay Soomaaliland la yiraahdo wad maalin kaste ama shir kasta oo caalami waliba ku soo casuumaya haddii Mareykanka dhacayo haddaba waxa jira shirar aad u waaweyn adduunyada ka dhaca ka Dubai baa kamid ah oo maxay sanadkii hore lagu casuumay Cabdiraxmaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland kan baa kamid ah mid Ingiriiska dhaca kamid ah Yurub Mareykan meelo fara badan bay adduunka ka dhacaan waxyaabaha soo dhan ee adduunyadu ka arrinsanayso way ka dhacday waa maxay dib u jeedku si ay markaasi aqoonsigooga Jamhuuriyadda Soomaaliland ay markaa uga hadasho arrimahan oo kale oo sheegtay dunidii in Soomaaliland rabto aqoonsi Israa'iil ma oranin wax walba noo soo dhameeya waxa war adduunyada madaxda iyo cid kasta noo geeya noo loobi gareeya anu la kulano anu markaas bayna maxay hadaba Soomaaliya waxay isku dayday xataa lacag ku bixisay dadii waxa jira adduunyada ma aragtay isku xidha ma aragtay madaxda Mareykan iyo wadamada sidan oo kale baabaa lacago Soomaaliya $2 milyan ay ku bixisay in ay la kulmaan inanka yar Eric Trump isna Cabdiraxmaan Cirro la casheeyo soo dhaweeyay welibana uu dhageystay oo uu leeyahay oo sawir la galay oo waxyaabo fara badan ee taariikhda Soomaaliland uga warramay dabeedna waxa dunidii la tusay inayna jirin wax Soomaaliya la yiraahdo ee laba dal oo Soomaaliland iyo Soomaaliya ay kala ahaayeen haddaba maxaa xigaya in kan yar iyo maaragtay waxna dhow waxay qaadayaan Donald Trump wali lama sheegin Trump may kulmeen samay kulmeen haddii aan xitaa kulmin muhiim ah in Donald Trump la kulmo laakiin fariinta la qaado Donald Trump uu og yahay waxna dhow laakiin inuu fariinta la qaado Netanyahu waa kii hore u gaarsiiyay maanta inuu Trump inuu gaarsiiyo waxa uu la kulmay waayo wala suuraysanay maxaad kula kulantay dadkii uu la kulmay cidiyo dhan okay fariimihiisa uga sida marka isaga ka dhaadhicinay wixii daba Soomaaliland iyo aqoonsigay okay Mareykan hadaba Soomaaliland dhabarku taagnaanay
إسرائيل لبركو تاجماني كده محل سميني إن إسرائيل لا تجو أبراهام كورسكي لا صحيحه هشيسي وين لا جلو إن هشيس دفاعي النظام كي لا جلو إمارات كوسي مريبال ليه هي إن يوضع مدي كلا تغيير سنة wax la sheegaya inay ilaa imka taageerayaasha Soomaaliland dadka aqoonsiga la diyaarka ah ilaa 40 wadan inay ku dhow yihiin guul weyn baa halkaa ka soo hoyatay barnaamijka sheer gare la wadaaga asxaabtaada aad iyo aad baan ku salaamayaa